madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la kulmay hoggaanka ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa uga warbixiyay hanaanka geedi socodka doorashooyinka qaran, dadaalada nabadeynta iyo dowlad dhiska iyo qabsoomidda doorashada furan oo dalka ka dhacda. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ururada bulshada rayidka ku ammaanay dadaalka ay ku bixinayaan in la xaqiijiyo xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed u leeyihiin doorashada cidda hogaaminaysa. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo waxa uu la wadaagay dadaalada dawladdu ay ku bixisay hanaanka loo dhan yahay ee siyaasadda, iyadoo mar waliba ahmiyad gaar ah la siinayo doorka ay hanaankaasi ku yeelanayaan ururada bulshada rayidka. Dhankooda ururada bulshada rayidka ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda u soo bandhigay rabitaankooda ku aadan doorasho qof iyo cod oo dalka ka dhacda, taasi oo ay sheegeen inay muddo dheer naawilayeen. Maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaan la kulanay. runtii aad baan uga mahadcelinaynaa sida dhaqsaha ah ee uu qaabilay ururada bulshada rayidka ah oo ka kala socda Soomaaliya oo dhan, oo ujeedkoodu ahaa sidii wax walba oo Soomaali ka dhaxeeya sida ugu fiican ugu dhamaan lahaayeen. runtii madaxweynaha waxaan u soo jeedinay waayihii la soo joogay waxyaabihii aan arki jirnay xilliyadan oo kaleeto walwalkana galay sida aan diyaar ugu nahay inaan qayb ka qaadano haddii ay yimaadaan wax madmadow ah ama isfaham waa ka dhaxeeya bulshada dhexdeeda madaxdeeda. runtii madaxweynaha waxaan weydiinay su'aalo waxaan u soo bandhignay waxyaabihii quruxda badnaa waddanka ka dhacay muddadii muxuu ahaay oo madaxweynaha ka ahaa. waxaan u sheegnay waxyaabaha imaan kara haddii muxuu ahaayey sida lagu wada heshiin waayo. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxweynuhu inuu si saraaxad la noola hadlay, inuu noo sheegay waxyaabihii horumarka ahaa, inuu noo sheegay sababta ku kaliftay muxuu ahaayey inay mabda'an qofkii codkiis ay muxuu ahaa xukuumadda soo jeediso taasoo uu ku macneeyay in Soomaaliya ay hore u socoto. ugu yaraan haddii la gaari waayo gobolka waddanka oo dhan, ugu yaraan in la bilaabo si dad badan oo ka faa'iideysan lahaa oo aan jeclayn horumarka Soomaaliya ay u arkaan in Soomaaliya hore ugu socotay, in wadadii shalay la qaaday oo qodxaha badnayd oo dhibka badnayd oo xaqdarrada ahayd oo boobka ahayd looga gudbo. waxyaabihii nasiib wanaagga ahay oo noo sheegay madaxweyne waxaa ka mid ahaa haba yaraatee inuusan noo sheegin wax kordhin iyo muddo kordhin uusan nagala hadlin, ay tahay xilliga muxuu ahaay xukuumadda u hartay inuu jecel yahay inuu arko wax ka bedelan wixii shalay boobkii dhacay. doorasho qof iyo cod ah in waddankan laga qabto waana waxaan aaminsaneen waa tan kaliya loogu bixi karo dhibaatada dalkan ee siyaasadeed ee soo laalaabatay. waxaan aad ugu xumahay in hirgelinteedii uu daah badan galay, isku haleys badan uu galay ilaa heerka maanta uu soo gaaro. maanta marka waxay taagan tahay war maxaa dan u ah ummadda Soomaaliyeed doorasho xor iyo xalaal ah ay dareemi karaan inay codkooda dhiibteen isla markaana ay ku qanci karaan laga hirgeli karaa dalkan iyadoo aan marna lagu laabanin wixii dhacay 2016. kulankan ayaa qayb ka ah kulamo madaxweynaha jamhuuriyadda uu Dhuusamareeb oo ah xarunta Galmudug kula qaadanayo ururada bulshada rayidka iyo mas'uuliyiinta halkan ku sugan. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Dhuusamareeb.